nabigan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh sida uu xadiis ku cadeeyey qofka hadduu waagu u dilaaco isigoo ehelkiisa jooga caafimaad qaba amni qaba cabsi iyo waxyaabahaas aanan jirin fakaannamaa xiizad lahu dunya bixadaafiiriha adduunyo oo dhan ayaa qofkaasi loo koobay adduunyo iyo miciyaheeda adduunyo oo dhammaystiran waxba aanan ka maqnayn ee qofkaas allah tabaaraka watacaala gacanta u geliyay marka waa nicmad aada u weyn maxaa yeele dad fara badan oo walaalaheena saaka waxay kusoo tooseen walbahaar xaalad argagax iyo cabsi ayaa jira kuwa qaar waxay kusoo tooseen caafimaad daro jiro iyo waxyaabahaas kuwa qaar reerkooda lama joogaan oo xabsi iyo meelahaas ayay joogaan allah tabaaraka watacaala intaba waa noo kulmiyey caafimaadkii amnigii iyo reerkii waxay o dhan waana siiyey marka ilaahay wuxuu xaq nagu leeyahy inaan u mahad celino oo aan idhaahno alxamdu lilah ilaahay o adiga ayaa mahadsan qofka bini aadanka ahna ma dareemo barwaaqo iyo nimco inuu dhex dabaalanayo ilaa maalinka laga siibo in laga dhex saaro ayuu ogaanaya inuu nicmo ku jiray barwaaqo uu ku jiray shaqada subax waliba uu aadi jiray caafimaadku uu qabay risqiga uu shaqaysanayey walaalihiisa kulanka uu la kulmayey reerkiisa aragtida uu arkayey maalinka ayuu dareemaya intaanan la gaarin ka hor ayaa marka aada u qurux badan allah tabaaraka watacaala in loogu mahad celiyo ilaahayna wuxuu ballanqaaday addoonka mahadcelin la yimaada inuu u kordhinayo lain shakartum la asiidannakum waqaliilu min cibaadiya shukuur laakiin waxaa aada u yar addoommada ilaahay u mahad celinaysa ilaahayow adigaa mahadsan alxamdulilah dhahaya addoommadaas aada bay u yaryihiin intaas kadib ikhwatii fillaah mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay cilmiga iyo ahamiyadda uu leeyahay lianna allaha rabbi alcaalamiin bini aadankan markuu abuuray wuxuu siiyey adawaat lcilmi aqoonta qalabkeeda oo dhammaystiran ayaa la siiyey culimmadu waxay sheegaan aqoonta qalabkeeda waa 3 shay saddexdaasi shay bini aadankan waa la siiyey saddexdaasi shay waa maqalka aragga iyo caqliga ilaahay saddexdaasi shay wuxuu ku cadeeyey qur-aankiisa bacdamaa khalqiga bini aadanka ama abuurka bini aadanka uu sheegay في سورة النحل إلهي وحويري والله أخرجكم إلهي والله إذن كسو ساري من بطون أمهاتكم هو ينكينا علوش هذا إلهي إذن كسو ساري حل قال إذن كسو ساري وحقون ما أذن لهين لا تعلمون شيئا وحقون يوح معرفة ما أذن لهين إلهي محوئ إذن سي قلب كأقونت وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وسدح ذا الشيء waxaa la idin yeelay maqal iyo aragti iyo caqli lacalakum tashkuruun si aad ilaahay ugu mahad celisaan qofka markuu maqal uu leeyahay caqli uu leeyahay aragti uu leeyahay ayuu wax aqoonsadaa markuu wax aqoonsado ayuu allah tabaaraka watacaala u mahad celinaya saddexdaasi adwaad ama qalab ee loogu talagalay in aqoon lagu raadsado qofkii qaab qaldan u isticmaala isaga iyo mas-uuliyadiisa qaadaya ilaahay qur-aankiisa ayuu ku cadeeyey ilaahay wuxuu yidhi fi suurati al-israa ولا تقف ما ليس لك به علم هراد الراعن وحاذا أقون أولهن الشاغن وحاذا أقون أولهن هدين وسداس وحاذا أقون أولهن حيالي سدح ذي قلب للشاغي يلي ردنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والإذن ويدينا يمد ولبا مقلكي أرقي يعقلي الإنسيي قاب قلدان هذا تكو استعماشان والإذن ويدينا يا diinta islaamkana waa diin aqooneed aayaadkii ugu horeeyey qaaru xiraa kusoo degay waxay ahayn aayaad ka tarjumaya aqoonta cilmiga macrifada allah wuxuu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq waxaa la ogyahay xilligaasi jaahiliyada waxyaabo badan oo qaldan ayaa jiray dadka oo la dilo ayaa jiray dulmi ayaa jiray gogolaaf ayaa jiray wax waliba oo xun ayaa jiray laakiin nabiga lama dhihin dadka dulmiga kareeb qaladaadka ay ku jiraan kareeb shirki ayaa jiray 360 oo sano ayaa Makkatul Mukarram dhexdeeda ku jiray waxyaabahan dadka kareeb lama dhihin amarka koowaad nabiga la siiyay salaatu rabbi wa salaamuhu alayhi wuxuu iqra aqra ya layl markaasuu nabiga ma ana biqari aniga ma ihi qof wax aqriya aqoon umalihi wax aqrin buu yiri kitaaba iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شنتاسي آيادود أقونتا أو أي كوبيهن قراءة كتابة أي الله تبارك وتعالى أمري
waxay markaas ka tarjumaysaa diintan islaamka inay tahay diin aqooneed, waa diin cilmi ku dhisan yahay oo ummadana loogu talagalay inay noqdaan ummad aqoon-yahaana oo cilmi iyo aqoon iyo macrifo leh. sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala suurat araxmaan wuxuu caddeeyey ahamiyadda cilmiga ee leedahay. allah wuxuu yidhi alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan. alraxmaan waa rabbiga raxmaanka min asmaaءi illaahi alxusnaa, macaanideeda waxaa ka mid a almuncimu bijalaa'ili الnicam, waa allaha nimceeya nimcooyinka waaweyn. waxaa kaloo lagu tafsiiriyaa allaha u naxariista naxariis guud ahaaneed, gaal iyo muslim ayuu u naxariistaa. halka alraxiim lagu macneeyo almuncimu bidaqaa'iqi الnicam, nicmooyinka gaarka ayaa wuxuu u siiyay dadka ahluljannada, yacni naxariista gaarka ah ayuu siiyaa dadka ahluljannada. marka rabbiga raxmaan ah callama alqur'aan, qur'aanka ayuu baray, yuu barayaa bin aadamka ayuu baray. khalaqa alinsaan, insaan ayuu abuuray. waxaa isweydiin mudan ama jawaabteedu uu cad yahay, bin aadankan abuurkiisa iyo in wax la baro qur-aanka yaa horeeya, abuur yaa horeey sooma. haddana aayaddii saddexaad ayaa laga dhigay bin aadanka abuurkiisa, waxaa laga soo horeysiiyey aqoontiisa, callama alqur'aan yaa layidhi khalaqa alinsaan. markaas culammadii waxay yidhaahdeen qofka hadduusanba aqoon lahayn adduunyada waa iska joogaa mooyaane wax muhiimad saasa ma lahan qofkaas. maxaa yeele callama alqur'aan, cilmi ayaa la horeysiiyey, kadib khalaqa alinsaan. haddaadan aqoon lahayn abuurka koonka aada joogto iyo adduunyada lagu keenay kama aadan faa'iidaysanin. si loo ogaado ahamiyadda cilmiga uu leeyahay ayaa allah wuxuu horeysiiyey, cilmiga ayuu horeysiiyey. sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala towxiidkiisa inuu mid waaxid uu yahay wuxuu u markhaati gashaday dadka culummada ah. ilaahay qofka uu yihahdo hebel ayaa iga markhaatiya, darajadiisa xaggee gaarsanya, meel aada u sareysooma. ilahi wuxuu yihi shahid allah, ilahi wuxuu ka markhaati furaya. marka koowaad isaga ayaa iska markhaatiya, shahid allah annahu laa ilaaha illaa huwa, yacni ilahi wuxuu ka markhaati kacaya inuusan jirin ilaahay xaq lagu caabudo ilaa isaga mooyaane. ilaahyo kale waa jiraan laakiin waa baatil. laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah, ilahay xaq lagu caabudo ma jiro ilaa isiga oo keliya. arrinkaasina ilahay ayaa ka markhaati ah. waalmalaa'ikatu, malaa'igtana markhaati ay ka yihiin. wa ululcilmi, dadka aqoonyahaanka ah ee ululcilmiga ah ahlulcilmiga ahna markhaati ayay ka yihiin. sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala isagoo caddeynaya dadka ahlulcilmiga darajada ay leeyihiin ayaa wuxuu tilmaamay addoommada ka cabsada keligoodba inay yihiin. inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. inamaa waa lafdi adaatu xasrin ayaa la yidhahdaa naxwiga markii la joogo, waxay faa'iideynaysaa hal shay oo keliya inuu jiro. inamaa arrinka in kaleba ma aha. yakhsha allaha, ilahay waxaa ka cabsada min cibaadihi xaal ay ka mid yihiin addoommadiisa alculamaau culummada. yacni qofaan caalim ahayn ama ilaahay aqoonin ilahay kama cabsanayo. ana sheega cabsidiisa waxaa ka horeeya aqoontiisa. caruurta yaryar waxaan arkaynaa waxyaabaha noolaha ah ee dadka dhibaaya sida faranbadlahan ama masaska yaryar ama hangarlaha dibqalooca kama cabsadaan, gacmaha ayay la gelayaan. laakiin dadka waaweyn markay arkaan waa boodayaan. marka caruurta yaryar kama geysana dadka waaweyn, laakiin sheegan ma yaqaanaan, madaradiisa iyo dhibkiisa ma yaqaanaan. sidaa darteed qofka hadduusan allah tabaaraka wa tacaala aqoon iyo cilmi iyo macrifo uusan u lahayn ilahay kama cabsanayo, wuu ku tumanaya, ilahayna kama xishoonayo. sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala wuxuu diiday dadka aqoon-yahaanka iyo dadka kale wax magaratada ee jaahiliinta inay sinnaadaan. ilahay waa diiday si bareeri. allah wuxuu yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, misla egyihiin dadka aqoonta leh iyo dadka aanan aqoon lahayn, misla egyihiin. su-aashaas yacnaa maaha istifhaam oo dadka wax lagu weydiinayo, jawaab aan la aqoonin maaha, waa istifhaam inkaariya. yacni islama ekawa dadka aqoonta leh iyo dadka aanan aqoonta lahayn dad isku dhow ma aha, waa dadka la fog. allah tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa in badan oo badan ayuu cilmigu ugu hadlay. markaasuu leeyahy allah tabaaraka wa tacaala wamaa yacqiluha ila alcaalimuun. aayaadkan ka markhaati kacaya ilaahay awoodihiisa, waxdaaniyadiisa, yacni ma fahmo ilaa dadka caalimiinta oo keliya ayaa fahmaya. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh shay la faray inuu kordhisto ma jiro markii laga soo reebo cilmiga. allah wuxuu ku yidhi qul leh rabbi zidnii cilma,
ilaahayu cilmiga ii kordhi, ilaahayu cilmiga ii ziyaadi dheh ayaa la yidhi. allah tabaaraka wa tacaala aadam markuu abuuraayey malaa'igta ayuu u bandhigay. malaa'igta waxay horaan ay u ogaayeen bin aadamka abuurkiisa waxaa ka horeeyey khalqi kale oo jaan la yihahdo oo jin ah. jinkii waxay sameeyeen, way isdileen, dhiig ayay daadiyeen, dhulka ayay fasahaadiyeen. markii loo sheegay in bin aadan la abuurayo waxay yidhahdeen maxaad u abuuraysaa kuwa dhiiga daadinaayo oo dhulka fasahaad ku sameynaya? allah wuxuu yidhi waxaan ogahay waxaadan ogeen, idinka arrinkaasi farax ka qaada. ilaahay wuxuu doonay inuu ogeysiiyo bin aadankan siduu ugu sareeyo malaa'igta. allah wuxuu baray aadam calayhi salaam cilmi ayuu baray. wacallama aadama alasmaa'a kullaha, asmaadii oo dhan ayaa la baray, waxyaabaha koonka yaala asmaadeeda iyo magacyadeedii ayaa la baray. kadib malaa'igtii ayaa loo soo bandhigay aadam calayhi salaam. malaa'igta ayaa marka koowaad su-aasha la weydiiyey, ambi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin. waxaa la yidhi asmaada waxyaabahan asmaadooda iyo magacyadooda sheega haddaad tihiin kuwa run sheegaya. malaa'igtu waxay yidhahdeen laa cilma lana ilaa maa callamtana, ilaahayu adiga ayaa ceeb ka hufan, annaga cilmi ma lihin waxaadna barto mooyaane. taasina waxay ku fiicantah in laga qaato qofka hadduu sheega aqoon uusan u lahayn inuu yihahdo laa adri, ma aqaano. lanna laa adri waa nisfu ljawaab ama nisfu lcilm. allah wuxuu doonay malaa'igta inuu dareensiiyo cilmiga ahamiyadiisa ee aadam uu xambaarsan yahay. markaasuu aadam ku yidhi ambi'hum biasmaa'ihim, u sheeg ayaa la yidhi. u sheegay waa sidaan waa sidaan waa sidaan. falama anba'ahum biasmaa'ihim, markuu u sheegay allah wuxuu yidhi soo idinma dhihin waxaan ogahay waxaadan ogeyn. kadib malaa'igta ayaa la faray inay aadam u daataan, ay u sujuudaan. sujuudaasina tacabud maaha, waa sujuudu tarxiib wa takriim wa taqdiir, waa soo dhoweyn iyo martabadiisa ay muujinayaan. dhammaantooda waa daateen markii shaydaan laga soo reebo. muxuu ku helay? cilmigaas ayuu ku helay. bin aadamka markuu noqdo qof aqoon-yahaanna oo cilmi leh, sharaf ayuu leeyahay. dad uma baahna, allah oo keliya ayuu u baahan yahay. laakiin koonka oo dhan dadka maamulaya, madax iyo wasiir, wax waliba waxay u baahan yihiin aqoon-yahaan ay u baahan yihiin. aqoon-yahaan waa lama huraan, dadkao dhan ayaa kuu baahan. laakiin adiga waxaad u baahantay allah tabaaraka wa tacaala. min ajli haada qofka bin aadanka ah waa inuunan marnaba u qursanin, inuunan isdhigin cilmiga inuu raadiyo. waqti waliba waa inuu ka faa'iidaysto. dadkii hore waxaa laga hayaa waxay yidhahdeen maalin hadday na soo dhaafto annagoo waxba aanan ka faa'iidaysanin, maalinkaas waxaanu arki jirnay inuu yahay maalin madow ah, baraka aanan lahayn. wax un ka faa'iidayso, hal xaraf ka faa'iidayso, labo ka faa'iidayso, mas'ale ka faa'iidayso. waa inaad ka faa'iidaysataa waqtiga allah tabaaraka wa tacaala uu ku siiyo. nabigan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu inoo sheegay qofka markuu wado cilmi uu qaado, wado cilmi markuu qaado, allah tabaaraka wa tacaala wadadaas wuxuu ugu jeexayaa wado ku hagaysa jannada. man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila aljanna. sidoo kale wuxuu nabigeen uu caddeeyey qofka taalibulcilmiga ah waxa u duceynaya khalaa'iqdoo dhan ayaa u duceynaya. waxa u duceynaya alxuutu fi lbaxr, nibiiriga ama yaxaaska badda ku jira ayaa u duceynaya. quraanjada godka ku jirta ayaa u duceynaysa. ducadaas ayuu qabaa. sidoo kale nabigan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wuxuu yidhi qofkii ilaahay khayr uu la doono, ilaahayba hadduu khayr uu kuula doono yufaqihu fi ddiin, ilahay qofkaasi diinta ayuu fahamsiiyaa. aqoon-yahaanka dhabta ah waa qofka xambaarsan cilmiga shariicada. waxyaabahan kale waa cilmi, dabcan dadka dalbaaya ama aqoonta u leh sharaf bay leeyihiin, laakiin cilmiga waa kala sareeya, maraatib ayuu leeyahy. martabada koobaad waa cilmu shariica, cilmiga ku baraaya allah tabaaraka wa tacaala, ku baraaya sunnadii nebiga. lanna allah tabaaraka wa tacaala markuu caddeynayey ummaddan waxyaabaha lagu galladaystay maxaa ka mid ahaa in rasuul la soo diray. rasuulka waxyaaba uu baraayo ayuu allah ugu sheegay. laba arrin ayuu ku sheegay, qur-aanka raadiya waa qur-aan iyo sunno. ilahi wuxuu yidhi fii suurati aali cimraan laqad mana allahu cala almu'miniin, ilaahay mu'miniinta waa galladaystay. goorma? id bacata fiihim rasuula, rasuul markuu usoo diray. rasuulkaasi muxuu qabanaya? yatluu calayhim aayaatihi, aayaadka allah tabaaraka wa tacaala ayuu ku dul aqrinaya. wayucallimuhum, wuxuu baraya. muxuu baraya? yacni tubi ma baro, injineernimo ma baro, iqtisaadiye iyo dhaqaalo ma baro. wuxuu barayaa alkitaaba walxikma. alkitaab waa qur-aanka kariimka, walxikma waa sunnada nebigan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. min ajli haada aqoon-yahaanka dhabta ah waa qofka aqoon u leh rabbi tabaaraka wa tacaala iyo sunnadii nebigeen salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. marka inaan ka faa'iidaysan in badan waqtigeenana aan gelino diinta iyo barashadeeda ayaa aada u fiican.
marnaba qofka inuunan quursanin inuunan isdhigin inuunan dhihin howl kalaad ku jirtaa waqtigii waa dhammaaday xoogaa da ayaad noqotay hadda miyaad fiqi yacni baranaysaa hadda miyaad wax baran ha isdhihin culamo waxaa jirtay ayagoo da ay cilmi ay bilaabeen way fara badan yihiin waqtigan waa dhammaaday waxaa ka mid ah alimaam alkisaa'i imaamu alqiraa'aati walluga qiraa'aadka iyo luqada qofka imaamku imaamu alkisaa'i isagoo da ayuu cilmiga u bilaabay alimaamu shaafici markuu ka hadlay muxuu yidhi qofka raba inuu naxwi iyo luqa uu barto wuxuu caruur u yahay alimaamu alkisaa'i buu yidhi imaamu kisaa'igaasi aqoonta iyo cilmi raadinta wuxuu bilaabay isagoo da ayuu bilaabay marka cilmiga kuma xirna da iyo da-yaraan kuma xirna qof waliba yacni intuu nool yahay wuxuu baran karaa cilmiga laakiin waxaa ka horeeya caziima dalab iyo jaceyl ayaa ka horeeya aaladda ugu weyn oo qofka uu wuxuu ku gaari karo hadaf iyo gool waa inuu lahaadaa dalab waa inuu lahaada caziima waa inuu lahaada go-aan waa inuu lahaada go-aan adaad leedahay iyo caziima adaad leedahay wax ku soo celinaya ma jiro wiil xirow ayaa jiray oo cilmi baranaya cilmiga xoogaa waa ku adkaada markii dambe waa baxay isagoo isla xaafadaada iyo ehelkaaga isaga gudoon waddadii intuu maraayay ee wuxuu arkay ceel oo markaas biyo laga soo dhaaminaya xarigga lagu jiida ayuu arkay markaas wuxuu arkay xariggii ma dilaacin ceelka halka uu ka haysto xarigga dhagaxii ayaa dilaacay oo meeshii dhan god ayuu noqotay yani maalin sida lagu jiidayay dhagaxii waa dilaacmay hoos ayuu markaas uu galay xariggiina wax saameyna ma yeelanin markaas wuxuu yidhi